kormeerkani ayaa waxay ku soo mareen sariibada degmada iyo waliba wada banayn ka socota degmada Togwajaale kii ay soo idlaatay kormeerkii ay ku soo marayeen gudaha degmada Togwajaale ayaa halkaasi waxa TV-ga qaranka Soomaaliland uga warbixiyay gudoomiyaha degmada iyo waliba xogayaha waxaanay ka warrameen waxyaabihii uu qabsoomay muddadii hayeen xilkaasi iyo waliba qorshayaasha mustaqbalka ay degmada ku horumarinayaan dadka waxyaabaha aanu sameeyno waxa kamid ahayd cagaf weyn oo sheewal aanu soo iibinay waxaanu soo iibinay isku ruux xashiishka in lagu guro aan ugu talagalay oo tii labaad aan ku labaynay waxa kale oo soo iibinay booyad dhinacna wixii ay dawladda hoose u baahato qofar gareynaysa dhinacna ka caawinaysa dibdamisku haddii uu u baahdo ay ururba la garab taagan tahay magaalada markuu roobku aad ugu daayay waxaad moodaa in magaaladii aan wadadooyinkeediiba ay wax dhintay ay yihiin magaalada waxa annagana soo gala mooyaane haddii magaalada wax loogu noqdo laydhaana dadka gebigooda meesha jooga waa dad shaqaalaha dad ay wax ka go-aan maaha dadkaa shaqaalahana markaad wax weydiisid odaygii baa maqan oo China ku maqan ama Hargeysa ku maqan ama meel kale ku odhanaya kolley haddana annagu firixdeedu ma yaro imika laftigeeda inaanu bilownaan doonanaa caratuun sida ugu dhaqsaha badan leh oo aanu waxaanu imika ururinay aanu gelino sida ugu dhaqsaha badan leh insha Allah ayaan imika u bilaabanaa inkasta oo roobku inuu yar qaado oo dheerida ayaa ina isku malmin loo baahan yahay shaysan insha Allah waxaan noo qorshaysan ka maamul ahaan in inta sanadka ka hadhay iyo sanadku raadiisa kulba intii nala gaadhaba 4 wado min 1 kilomitir oo ay noo qorshaysantay lacagteedina waanu haynaa inaan ciid digno oo dhawaan wasaaradda iyo xafiiska gobolka yimaadaan oo dhagax dhigno roobkun baa naga dhex galay oo noo qorshaysantay haddii la yiraahdo waxa kale oo noo qorshaysan xafiiska dawladda oo soo arkaysan oo adii wiilay degmada way jecel lahayd ku soo baxaysay ee hay'adka degmada lahaa ee hay'adka caasimadeed lahaa ayaan haddii la yiraahdo isagana noo qorshaysanadka inaanu dhisno waxa kale oo insha Allah ka filaynaa dawladda dhexana in degmada bangi laga dhiso halkan oo isagana gudoomiyaha banka Soomaaliland ma noo yimid isna waa loo dhagax dhigay kaasina haddii Ilaahay yiraahdo waxaan rajaynaynaa inuu noo dhismo Su'aab Cabdi Goole telefishinka qaranka Soomaaliland magaalada Hargeysa.